أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. horey waa cabdinaasir cabdicasiis maalin janna gale oo markaana ka hadlaya insha allah tacaala kii saddexaad macnaha waxyaabaha uu network gacaanka ku yahay ka mid ah. hore waxaan kusoo hadalnay switchka iyo habka waxay ku kala duwan yihiin, waxaana soo sheegnay in habka uu yahay macnaha technology qadiim ah, saas daraaddeedna switchka uu bedelay badana ku daray. routerka marka la fiiriyo naftigiisa waa kasii markin oo intelligence ama ka caqli badan yahay switchka, laakiin haddana lama dhihi karo baduu ku daray, bal waa wada shaqeeyaan. mid walbana shaqadiisa waa shaqo gooniya oo maarata loogu talagalo gooni u shaqeeya. dhinaca kale haddii laga fiiriyo switchka naftigiisa waxoogaa xamuud inuu soo hormarayo oo shaqooyinkii oo routerka maarata oo dhinaciisa kasoo qaadanayo. switchka saa hore usoo sheegnay isaga wuxuu shaqadiisa ay ku egtaa waa local area network ama network gooni ah, waa arrimaha gudaha waaye macnaha kombuyuutaradan gudaha ku dhegan oo isku halkan network ah. waa markii maarkino macnaha of course isaga logical waa loosii kala qeybi karaa networkyaal kale, laakiin muhiimadda guud oo hadda aan rabo inaad u fahanto waxa waaye hal network oo isku mid ah macnaha oo local oo ka shaqeeya isaga. wixii network kale ah macnaha markii network kale oo la xiriirayo waa qasab inuu maraa si kastaba ha noqoto, xataa isaga haddii la kala qaybiyo oo logical networks loo kala qaybiyo waxa waaye wuxuu waa inuu dhex maraa routerka shaqadiisa waxay tahay laba network oo kala duwan markii qaabka ay u xiriiri lahaayeen. markaas waa shaqadii routerka. waxaana ay kale ku kala duwan yihiin dhinacaas waa taankus hadda waa soo sheegnay, mid waxa waaye local gudaha waaye, midna networkyaal kala duwan arrimo markii banaanka lala xiriirayo. qaabka ay u shaqeeyaan waxay kala duwan yihiin. switchka hore waxaan soo sheegnay in marka uu local area network xiriirinayo uu u baahan yahay keliya inuu isticmaalo physical addresska ama waxa la yidhaha MAC addresska oo ah number ay warshadii soo samaysay network cardkaas macnaha usoo samaysay, waana number unique ah, wax lale aysa adduunka jirin. wax kasta oo internetka kula xiriiraysana waa leeyihiin macnaha numberkaas. marka uma baahna wax kaleeto oo logic macnaha ama logic address uma baahna switchka, physical addresskaas oo isticmaala. routerka asaga wuxuu uga duwan yahay, wuxuu ku shaqeeyaa oo asaga markuu traffic kala hagayo uu isticmaalaa logical address wax la yidhaahdo, waa ama si kale haddaan kuu sheego waa IP addresska. IP addresska ma ahan wax ay warshad kusoo samaysay, waa wax adiga personally aa maaragtay aa u samaynaysid oo leedahay IP addresskaasaan markaan interfacekaas IP addresskaas ha yeesho oo ku qoraysa adiga waa kaasuu marka isticmaalaa. maadaama marka uu isticmaalayo wax logical addressa oo adiga ay ku qoraysid, wuxuu kaloo dheer yahay switchka oo marta uga duwan yahay in halkii switchka uu ku ogaanayo keliya waxa ku dhegan keliya asaga oo ogaan karo xataa waxaan ku dheganayn oo mataqaanaa oo meel dheer uga yaalla. matalan haddii 10 router maahane intaas router kale ay u dhexayso oo mataqaanaa oo rabo network 20 router gadaashiis ku yaalla, asaga awood waa u leeyahay inuu barto xataa meesha uu ku yaallo oo uu yiraahdo halkaas uu yaalla halkaas aan u diraa. sida caadiga marka trafficka oo kala hagayo dhowr siyaabood dhici karta. mid waxaa dhici karta adiga inaad u sheegto oo tiraahdo war traffic kasta oo ku socda. matalan aniga hadda markii aan network aan sameynayay horey waxaan u isticmaalayay intaanay ahayd macnaha waa qaybtaanan hore aan isticmaalaynay. hadda waxaan ku daray intaanan gooni soo sameeyay, laakiin weli kuma dhejin. haddaan ku dhejiyo bal 0.0 ab oo hore ka yahay, wax kalena maahan horaan markin usii sameeyey macnaha aan IP-gii wixii dhan usii geliyey. cagaarka hadduu yahay macnaha ab waay waa shaqeyna waay, haddii kaleto guduud waxaa lahaa. markaa fiirisid routerkan hadda networkan kuma dhegana. switchka waa fahmi kartaa, switchkan ma fahmi karo computerkan meeshuu xigo dhinacu xigo ma fahmi karo, laakiin routerka kan waa fahmi karaa in computerkan dhinacan jiro. dhowr siyaaboodna ku ogaan karaa. midda koowaad, computerkan wuxuu ka mid yahay networka 10.10.10.0 network oo ku jira. waxaan dhihi karnaa routerkan inaan idhaahno wax allaale iyo wixii networka dhinacaasa ku socdaba halkaan u dir, adiga waddadan isaga dir. macnaha interfacekiisana loo sheegay waxaa dhihi kartaa interfacekan oo interfacekaaga ah serial interfaceka 0/1/0 ku dir, macnaha halkaas isaga dir, asaga ayaga gaaraya kanoo soo gaara kana sidoo kale in loo sii sameeya noqonaya. marka loo sii sheego adna wax allaale wixii oo network 10 ku socda saamku halka dhinacaan u dir.
markuu kan soo gaaro kan dabcan wuu ku dhigay uma baahna hore ka fahmaa laakiin haddana waa adkaanaya markii 10-20 computer mid walba saas lama soo dhigi karo waxaa jira hab kaleeto oo isaga oo routerka u bara karo waana habka macnaha waa kuwaas dynamic routing protocols la yidhahdo sida ribka oo kaleeto matalan EIGRB oo kale OSPF oo kale open shortest path first adiga waxaa jira kuwaas oo kaleeto waa markooda imaan doona insha allah laakiin computerada mid walba waa in haddii maaragtay isku protocol u samayso matalan kan oo kale haddii aan nidhaahno rib aan nidhaahno macnaha protocolka ribka geli ku shaqey kan aan nidhaahno ribka aan siino way isfahmayaan macnaha labadoodan way isu gudbi karaan wax yar kadibba adiga qaab algorithm ay isticmaalaan jira wax yar kadib calaa kulli xaal 30 second ba routerkan wuxuu kan u diraa leeyahay war intaasoo nadweega ogaa gadaasheeda ku jira kana sidoo kale usoo sheegay wuxuu leeyahay ana intaasoo gadaasheeda ku jira dan intii oo kale suga wuxuu leeyahay intaasaan hayaa maanta oo dhan saas uu sheegaya adiga ma dareemaysid laakiin dabcan ayaga hoos way ka hadlaya wax ma soo kordheen saas camal waa intaanan hayaa marka kana sidoo kaleeto haddii ribkaasna la daaro sidoo kaleeto waa marka protocol walba qaab waxaa jira oo isticmaalo kulligood saas ma wadahan laakiin ayadeeda waxaan filaya inaan fahmayso macnaha qaab waxaa jira ee iyagu isu sheega mid walba uu leeyahay war ani intaasoo nadwaaga iga dambaysa kana kuwa ku dhigan sidoo kale usii leeyahay ana intaana iga dambaysa ninkaan marka waa og yahay computerka dhinacan ka xiga xataa inta nadwaaga oo dhinacan ka xigta macnaha oo ka xigta haddii matalan router kale matalan oo halkaan ooli lahay matalan hadduu router kale halkaan ooli lahay oo mid kale halkaan oo ooli lahaa weli oo dabcan markaas kadib aan isku xirno macnaha routerradan oo dhan ay isku xiran yihiin matalan fiilo kasoo baxday kan oo kale kan ku xiran tahay kan fiilo kasoo baxday laga yaabay inay kan ku xiran tahay ama switch kale baalkan saas camal haddii ay u yimaadaan wuu gara lahay routerkanu in ay uga fududahay wadadan ama wadada midii fudud waa garanaa macnaha qaab waxaa jira routerada ay u ogaan karaan waxa ku dhegan maahanay wax ka dambeeya xataa taas horta waa waxa uu uga muhiimsan yahay ninkan baalkan switchka waxyaaba kaloo tir badan oo waa jiraan laakiin waqtigooda aan imaan doonaa muhiimadda adi waxaa muhiim ah deertaan gabagabada inaa ogaado anoo soo gaabinayo switchka wuxuu ku shaqeeyaa uu markuu wax kala hagaya isticmaalaa physical addresska ama MAC addresska routerka logical addresska ama IP addresska oo isticmaalaa routerku wuxuu isku xiraa networkyaal kala duwan switchka wuxuu ka dhex shaqeeyaa hal network oo ka dhex shaqeeyaa marka waxaan filaya inay marka intaas aragtidii guud ku filan tahay wixii ka dambeeya insha allah tacaala gadaal aan ka sheegi doono waxaan rajeynayaa ka kusoo xiga inuu noqon doono OSI modelka sababtoo wax badan oo nooga fududay doonaa weliba hadda inta aan kasoo hadalna saddexda aan kasoo hadalna markaan fiirino habka oo kaleeto OSI modelka haddii waa ilaa iyo 7 waaye habka asaga waxaa waaye layer 1 oo ka shaqeeya wuxuu lamid yahay fiilooyinka mataqaanaa caadiga fiilada caadiga oo internetka iyo switchka udhexeysa camal lamid yahay waxba kagama duwana wax intelligent ah ma lahan just wixii loo keeno unbuu gudbiya layer 1 koona ka shaqeeya waa layer 1 macnaha asaga switchka asaga local area network waay physical address ku shaqeeya waana layer 2 oo ka shaqeeya routerka asaga layer 3 oo ka shaqeeya waana dhinaca network waxay kala cadaan doonaan markii aan haddii ilaa yaraag sheegno OSI modelka iyo wax ay kala yihiin balse hadda intaasan kusoo gabagabeynaa وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.